Din makudak manena anigu I will say no. Zakaria, were very sensitive question. Dinta makudak na mukte. Mana rawina lagu label kare dinta kusur jeda. Aku rasa aniga sahib kay. Marka dinta maqabo aniga wadanka in lagu xukumo. نعقل بدن مريكان يا كلا سوعين دينتي يستيت. There's a reason يو كلا سوعين. It's not joke ما. ونعقل بدين ونعقل بدين ونعقل وياركسين حين باشا على كلا سوع. بخاري والكي وحويري كينيا system. أنا في أنت كأخري كين system. I think it's a good system. لكن إن كاسو كلا قادرينه يمكن لو حوت على الصومالية. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. waxaan arkayo waxyaalaha aad aan uga naxay bay ka mid tahay maalin dhaweyd laba nin oo Soomaali oo la leeyahay waa professoro magacyadooda taqriiban waan garanayaa iyo wajigooda laakiin la sheego muhiim ah meel bay wada fadhiyaan social media la soo gali mid baa wuxuu leeyahay haddii la isweydiiyo buu shariicada islaamka ma ku dhaqanaa haddaan Soomaalina wuxuu yidhi I will say no. I will say no. Waa professor Soomaali ah oo Mareykan wax soo baray waa shariicada ma ku dhaqanaa Soomaaliya ma ku dhaqanaa haddii la yiraahdo anigu waxaan dhihi wuri maya midkii ka dambeeyaba dibi dalo ka dar waay midkii la fadhiyay wuxuu yiri anigu horta saaxiibkay waan ku waafaqsanahay buu hadalkiisaas sababtana wuxuu yiri talaaba ka sii daran wuxuu yiri Mareykan baa kala saaray buu yiri diinta iyo nolosha Mareykanna waa naga aqoon badan obvious saas u hadlay waa professor waa naga aqoon badan waa naga waay aragsan waa naga xoog badan maadaama Mareykan uu diintii iyo kala saaray iyo baashi asaga inuu kaga dayanayna saas daradeed saaxiibkay waan ku waafaqsan waxaan sadhihi lahaa buu yiri aan samaysano dastuur aan shariicada dib u geysanaynin kelimadaasi waa kelimo shaydaan waay caamada lagu siraa shariicada waxaan ka hor imaanaynin aynu aan dib u geysanin kuwa professoriintii ay gaala soo tababartay laga soo shaqeeyay ee 40 sano la soo tababaraya Soomaalida aha warkoodu kaas waa maxaa la doonayaa ummadani inay sanka uga tollaato ya cadaan iyo reer galbeed gumaysi aan danaheeda ka shaqeynay wixii ay ku xoogaysan lahaydna laga ilaaliyo culimadii baan la wada muqdisho ka hadlayso waa in la fadhiday soo nasiib xumo ma aha dhowr iyo 20 sano kadib in Soomaaliya lagu soo celiyo mooshinkii lagu laayay culimada Soomaaliyeed ma taqaana culimadii Soomaaliyeed la toogtay ee aafadan Soomaali haysiya burburkeeduba ka bilaabatay waxa lagu laayay muxuu ah dumar gaala soo dirsatay ayaa waxay keeneen shuruuc la yiraahdo xuquuqda haweenka xeerka qoyska oo diinta Rabbi si toos uga hor imaanaysa maamulkii markaa jiray baa barnaamijkii qaatay dumar baa si asal u hayo keenay markuu maamulkii qaatayna wadaadadii maya yiri wardiin Rabbi bay ummadani leedahay xaqiiqadeedana waa islaam arintana shariicada Rabbi kitaabka ka hor imaanaysa yaa inta la qabqabtay abirta laga aslay Soomaali oo dhan oo daawanaysa meeshaana Soomaali loogama horin halkaas la iska raacay 20 iyo dhowr sano kadib oo silic iyo wareer iyo jahwareer umadu ku jirtay ayaa mooshinkii laftiisii maanta loo keenay dadka ummadda oo la yiri asagoo yare maldahan oo farsamaysan
ayaa la yidhi aynu qaadanno. anigu waxaan la yaabay marar badanna waan tilmaamaaye xoolaha la dhaqdo adhiga kaba soo qaad caqli ma leh, laakiin ilaahay wuxuu siiyey waxoogaa dareen ah. ninkii xoolaha raaci jiro adhiga raaci jiray baa yaqaan. adhiga meeshii shalay waraabuhu ku galay oo dawacadu ku gashay oo neefka lagaga reebtay oo wacdaruhu ka dhacay, berri markaas ku soo dareeriso kayntii iyada ahayd madaxa ugu geliso wuu soo didi. waxba ma arkin hadda ogow, dawacana ma arkin, waraabana ma arkin, jiifaana ma arkin, gududana ma arkin, adhigii waa soo diday. war adhigana maxaa didinay? haddaad daba martaba meesha wax jooga male, raadna male. adhigu muxuu ka soo diday? ya wacdaradii shalay buu u joogay. soomaaliga calmaaniga ah aqoon-yahanka sheeganaya caqli xumadiisu way keeni weyday. war meeshii shalay ummaddu ku burburtay oo wacdarahaasi ka raacay adhi baaba ka didaya kadid waa garan waay. waxaase wax marka ummadda taladeeda wareerinaya. muhiimaddu waxay warku waa ila sibqadee, maqsuudku waxa weeyaan ummaddani inay diinteeda qaadato, mujtamaceeda iyo mujtamacaadkeeda iyo dowladaheedaba waa meesha maxag ka awa, waa meesha awooddeedu iyo quwaddeedu ay ku jirto. halkaana way meesha laynagala dagaalamayo.